gacmahan kala maarmin muxibbooy kugu yaale maqadaar ligeenna kulla kuu maqli maaye maydaan ka dhintaaye kullahay maqashiin maydaan ka dhintaaye kullahay maqashiin inagoon kala maarmin kullahayga maqnaan inagoon kala maarmin kullahayga maqnaan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa hoyga Soomaalida Holland oo ka dhegeysataan hirarka gaagaaban ee FM-ta 99.4 iyo 106.8 megahertz imikii haatan waxay sheegaysaa goor sheegtay studio-gu 7 iyo rubuc waa waqtigii aad inooga barateen inaan idiin soo gudbino war wixii maanta adduunweynaha naga soo gaadhay waxaana warka maanta diyaar inoogu ah wariye qadaaf bismillaahi raxmaani raxiim fiidnimo wanaagsan ku soo dhowaada qodobada wararka ugu door korona waxaa ka mid ah Ban Ki-moon oo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ka hadlay dhibaatada la soo gudboonaan karta sahayda dalka Soomaaliya haddii aan badda Soomaaliya wax laga qabanin. Wafdi sare oo ka socda dhaqdhaqaaqa Islaamiyiinta ee ururka Xamaas oo gaaray magaalada Qaahira ee xarunta waddanka Masar. Markab dagaal oo xambaari kara awoodda nuclear-ka oo ku sii jeeda xeebaha dalka Soomaaliya kaasi oo uu leeyahay Mareykanka. intaasi waa qodobadii warka ugu door korona imikana warkii oo dhan xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada soo food saari karta qorshaha galbinta gargaarka cunnada ee ku sii jeeda dalka Soomaaliya iyadoo xukuumadda Canada ay shaacisay in uu dhamaanayo xilligii loogu talagalay in ciidamadeedu galbiyaan sahayda gargaar ee WFP ay keenayso dalka Soomaaliya. Ban Ki-moon ayaa hadal uu ka jeeday xalay fadhiga qaramada midoobay wuxuu ku sheegay in haddii aan la helin dowladda badasha ciidamada Canada ee xilligooda uu sii dhamaanayo ay adag tahay in sahayda gargaar ay si nabad ah ku timaado dalka Soomaaliya maadaama ay sii kordhayaan falalka burcadbadeeda Soomaaliya. ciidamada Canada ee hawsha galbinta u sameynayay gaadiidka badda ee daabula sahayda gargaarka WFP ayaa waxay xilligeedii ay ku egtahay 23 bishan Oktoobar aynu ku jirno iyadoo weli aan jirin waddan si buuxda ugu tabarucay in ay qaadanayaan mas'uuliyadda galbinta. xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Ki-moon wuxuu sheegay in aynan suurtagal lahayn in maraakiibta sahayda gargaarka sida aynan tegi karin dalka Soomaaliya haddii aan la helin maraakiib dagaal oo galbisa waxa uuna sheegay in haddii la waayo gargaarkaasi ay dad badan u geeriyoon doonaan. wafdi sare oo ka socda ururka Islaamiga ee Xamaas ayaa gaaray magaalada Qaahira kuwaasi oo soo dhoweyn diiran kala kulmay xukuumadda waddanka Masar. wafdigan ayaa la sheegay in ujeedadoodu amaba socdaalkoodu yahay in wada hadallo ay la yeeshaan dowladda waddanka Masar kaasoo lagu soo afjarayo dhibaatooyinka guud ee ka taagan dalka Falastiin. hogaamiyaha wafdigan oo lagu magacaabo Maxamuud Al-Zahar ayaa sheegay in sidoo kale ay xukuumadda Masar ka dhageysan doonaan waxyaabihii ay soo jeediyeen kooxda kale ee Falastiiniyiintu kuwaasi oo ay Masar si gooni ah ula kulantay. Al-Zahar ayaa sidoo kale sheegay in wada hadallada aan lagu soo qaadin karin askari Israa'iili ah oo lagu magacaabo Jalcad Shahaad kaasi oo ay Xamaas ku qafaalatay marinka Gaza sanadkii 2006 iyadoo ilaa hadda maxbuus ahaan ay u haystaan. dhanka kale ururka Fatah ayaa ugu baaqay ururka Xamaas in ay qaataan qorshaha ee Masar oo ku dhexdhexaadinayso ururada Fatah iyo Xamaas kaas oo ah in la sameeyo dowlad ku meel gaar ah oo ka shaqeysa waddanka Falastiin inta laga sameynayo doorashooyinka loo dhan yahay oo ka dhacaya gudaha waddanka Falastiin. jaamacadda Carabta ayaa sheegtay in haddii ay guul dareystaan wada hadallada amaba ay guuleystaan la dhex dhigi doono ururada Fatah iyo Xamaas ee taageero militari waliba mid siyaasadeedba siin doonaan xukuumadda Falastiin.
jaamacadda carabta ayaa sidoo kale sheegtay amaba ku goodisay in kooxdii fashilisa wadahadallada labada dhinac ay mowqif adag ka qaadan doonaan kuwaasi oo dhibaatooyina la soo gudbi doonaan. halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda dalmar. markab weyn oo nuuca diyaaradaha dagaalka xambaara ah kuna shaqeeya awoodda nukleerka oo ay leedahay xukuumadda Washington ayaa la sheegay inuu ku sugan yahay dekedda magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, kaasoo ku sii jeeda xeebaha dalka Soomaaliya si ugu qayb qaato barnaamijka ay wadaan midooda Yurub iyo weliba uu Ruushka qayb ka yahay, iyo sidoo kale dowladda Mareykanka ee ku aadan la dagaalanka burcadbadeedda Soomaalida ee ka howlgasha biyaha caalamiga ah ee dalkaasi Soomaaliya. markabkan oo magaciisa lagu sheegay USS Trib Ristaf oo tankiisuna yahay 95,000 oo tan ayna la socdaan 3,000 oo askari ayaa la sheegay in ay ka hor inta uusan u soo boqolin xeebaha Soomaaliya in uu la sameyn doono dhoolatus maraakiibta dagaalka ee waddanka Koonfur Afrika. dhoolatuskan military ee maraakiibta Koonfur Afrika la sameynayaan markabkan dowladda Mareykanka ayaan loo fasirin karin in dowladda South Africa ay qayb ka tahay barnaamijka ku aadan la dagaalanka burcadbadeedda Soomaaliya, maadaama xukuumadda South Africa aysan shaaca ka qaadin inay diyaar u tahay in cutubyo ciidamadeeda ah kuwa badda ah ay u soo dirto xeebaha Soomaaliya si wax looga qabto burcadda. hase kastaba arrintu haatee isku soo diyaarinta dowladaha Mareykanka iyo weliba kuwa kale dagaalka ay kaga hortagayaan kooxaha burcadbadeedda, haddana waxaa jira dalal ay wadaan dadaalla ay wadaan dowladaha Carabta, Ruushka, midooda Yurub iyo weliba kuwa kale oo ku doonayo sidii loo burburo lahaa ama loo ciribtiri lahaa burcadda qowleystada ah ee dhibaatada iyo weliba waxyeelada xooggan u geysta maraakiibta ka kala goosha inta u dhexeysa badda Soomaaliya. dowladda Faransiiska oo hadda haysa madaxtinimada midooda Yurub ayaa wasiirkeeda gaashaandhigga ee Hervé Morin toddobaadkii la soo dhaafay uu sheegay saxaafadda in 8 waddan oo xubno ka ah midooda Yurub in ay diyaariyeen cutubyo ka tirsan ciidamadooda badda oo gacan ku siinaya ciidamada Mareykanka howlgallada ay ka wadaan biyo mareenka khatarta badan ee caalamka ka soo food saartay ee Soomaaliya. si kastaba dowladaha Masar oo ah dowladda gacanta ku haysa biyo mareenka caalamiga ee Suez horeyna lagu qabsaday markab ay leedahay xeebaha dalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dirsatay amaba ay u dirtay ciidan ka hortaga burcadbadeedda kana soo horjeesta waxa ay ugu yeereen burcadda dhibaatada xooggan badaha Soomaaliya ka wada. warkii caawa oo aad ka dhageysanayseen Radio Dalmar xilligani waa naga intaas. mahadsanid Qadaafi. waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa hoyga Soomaalida Holan oo aad ka dhegeysataan mawjadaha FM-ta radioga 99.4 iyo 106.8 MHz. adduunkana waxaad nagala socotaan meel kastoo joogtaanba barta internetka ee cinwaankeedu yahay dalmar.org. Radio Dalmar iyo barnaamijyadiisa inta inooga hadhayna waxay noqon doonaan sidatan. waxaa ugu soo horeyn doonaa barnaamijkii barashada afka Nederlandiiska, waxaa inoogu xigi doonaa barnaamijkii faaqidaada adduunka oo inoo daadihin doonaan Daawus iyo Qadaafi. waxaa kale oo inoo raaci doonaa maanta barnaamijkii sportiga oo iyagana diyaar ugu yihiin Maxamed Faarax Bustaale iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo isaguna mar walba stuudioga sportiga inoogu diyaara. halka u dambaysa waxaad dhegeystayaal idin leeyahay dhegeysi wanaagsan meel